karoorkii iyo dhaydiyo haddii kuriskii aan hayno kiniiniba ka fiican kashbaca kaamil baad noqone kun dawaalahaas uu ilaah kuraha noo buuxshay haddii aad kala u wada qaadataan koorma noqoteen la idinkuma ka kabiyeen cirbado sida kufaarkii sida kriminaalkii bulshadu kaama cararteen katiinado lagulama xireen meel kulayl badane kaloonti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan iyo si kasta oo maqalkeenu idiin soo gaaray iyo muuqeen barnaamijku waa barnaamijka kaalimaha suugaanta waxaan marti noogu ah mar labaad abwaan axmed cabdi warsame oo abwaan oo loo yaqaan abwaan BBC abwaan soo dhawow marka hore ku soo dhawow barnaamijka waa dhawahay ardaayr ku dhawahay barnaamijka abwaan kaalimaha suugaanta weeye barnaamijku marka kaalimaha suugaantana diiradda waxaan ku saarnaa inta alaaba barnaamijka suugaanta sida gabayada heesaha waxyaabaha kale wax kasta la xiriira barnaamijka suugaanta marka caawa kolleytaba kaalimihii suugaanta ayuu qayb ka yahay oo aad qaniga ku ahayd adiga iyo rag kaleba marka abwaane soo dhaweyn kadib waxaad nooga dhaxdaa bal caawa maxaad noo haysaa waa maasan tahay cali daahir caawa waxaan hayaa gabay la yidhaahdo covid19 ka hadlaya oo muddooyinkanba aan wada laakiin mar hore aan tiriyey gabaygan awalna miidiyaha aanan dhiginba gabayga covid19 xillimaa tiris abwaan waxaan tiriyey bilowgii ma hadda dhamaadka dhaxaadkan tiriyey hadda bishii 8 meelahaas aan tiriyey inta cudurkan uu ku jiray adduunka weliba laba kaclayntii dambe si fiican abwaane gabaygan markaa tirinaysay maxaad aragtay oo kugu dhashay oo kugu kalifay gabaygan inaad alifto kolleytaba wax kasta waxaa keenta duruufta ayaa inay keento laga yaabaa ama waxbaa qofka ku sababa shay walba inuu qabto marka gabaygan markaa tirinaysay waxyaaba aad aragtay adiga dareenkaa soo kiciyey maxaa ka mid ahaa kolley duruufi waa jirtaa gabayga qofba siga ugu dhashaa si fiican badanana waxaa looga hadlaa suugaanta hadday taqaanado ama lagu tilmaamaa xaaladda markaa taagan oo ama deegaanka ka taagan ama bulsho ahaan u taagan ama caalamka oo dhanba ka taagan cudurkan wuxuu ahaa cudur caalamka oo dhan ku fiday xitaa madaxdiiba waxay garan waayeen waxay ku hadlayaan markii dambe oo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii Donald Trump oo xilligaas jegada Mareykanka hayay inuu yiri xitaa waxa uu qorsheyn anagu 200 oo kun oo qof inuu dilo cudurkaas kadibna oo intaas oo igu samri karaan uga samri karaan حتى ومركي دم جاري إنه أفر بقولة كنا وكدلو ولا بقولة كنا كلا وكدر صلاة عذركي لا نن حلوقون دي ونقد عذركي طيب هذا سو أنت كلنا هذا كجارة أنا ما أمين سلام وقت كتاب قال لي عذر كان وحياة لو هرتي كرو مركز سياسة أولاد شكبي ساس أوجد ضد كقار بقى يراجعين أنت بدنا إنك استهاد أي بلطي ضد كحياة مثلا مركز ورا مسلم كمدلو عذركم صح وضد بقى عصولة تاس أضو مدابة تاع أبوان الصوماليات فكر كم كوجرتي إنه صار مسلم كديل بس وقت من سن المركز تاع عذر كانوا وياهي عذر صفمرة قفنا دينين قف كستو سو جارنا أو مسلم هذا ما قال هذا التاجي ما ها قفنا هرتا قفك واحد كسر صوب لو جسودي بقى هدي قضاء حتى لو جسودي بس صوبتها قضاء ذا كديل يسمع ما كان أنت صوبتها لو جسودي بقى تودي لي ولا أنا درك كم مصبح إنه حل كان حتى وشير هذا ما درس الشيء هذا ما درس الكبه هذا حتى جناسي يرقالي أدون كنا وخاص اللي جوا الله صوتها مركا قبيجو قبيجو مقعيس قبيجا واحد هذا COVID-19 أوكي هي قبيجا بسم الله الرحمن الرحيم قبيجا دام بالله قبيجو حود عيا إن دويد بقى كاف كم مبتدأ وأنا كان كبينه وأنا كان كف على وحي كيت سنين شريه وأنا كان كتاب كده روين كارنتي قبايا هيا شيء كيسس كان بيشوي كون كهلكي كافرين تو يجا كروي كبدي صارنايد يجا كفارتاس حنحني كي شيء صوبتاس يجا كورونا في شو كيس كراتدي يجا كيسي مدى قشري كيمي كذا بس يجا يسوق عيو في الندى كالا يجري كون هديو أوجو أو كون كله كوما لغو تورو كنا أو عابقي هيو لغو كرانتيلو ربي كلي أها كما أدعانه كافي وما ده هيام بريها كون يكو شاري كرامة الرسول كي صنعها كيد كما يدقانه كوفي يا كدوك كود عي كبير نمي ديني مسلم يا كتاب كما فرحان كان مال بدانه كو دينتا يستو دان باي مدفتا كورانه كنيسadaha soo gala ayay ugu kalaamaani ku cimri qaadana maayana hadii ay kala yaraadeen aakhirkiina kariim baa ku riday kan kariye boog afartaas kaafka gabayga iyo ka hawa baride kooladan ka jaray maasadiyo kala furkeedii kaymadoogle karar iyo hilaac kala buuxaan afar kalena aan idin kamilo kayd kala haray
muslimku oo kitaabka ay ku taalka hortagiisiiye kelmadaha ilaahay badka aad ku intifaacdaane kurbada iska saara allihii keenay baa jire ka dawoobi maysaan haddii aad kala colowdaane iskaashada oo kiini il daran kumina aan haysan keliyaha u buuxiya dib baad ka heli doontaane karoorkii iyo dhaydiyo haddii kuriskii aan hayno kiniiniba ka fiican kashbaca kaamil baad noqone kun daawaalahaas uu ilaah kuraha noo buuxshay haddii aad kala u wada qaadataan koorma noqoteene laydinkuma kakabiyeen cirbado sida kufaarkii sida kriminaalkii bulshadu kaama cararteene katiinado lagulama xireen meel kulayl badane lama kala geeyeen qof iyo waalidkii dhalaaye keliyaha qof buuxsaday ifila kama adkaateene kalorokuwiin baan cuniya kacaydu waa beene waa kabarjabkii dunida iyo koonka waxa yaale kelmadaha ilaahay iyo intaan kutubadii baarno kumanaan ayaa siin hal aqriyo kiisku waa tegii kuma hadiya kun jeer maalig baa keeni naxariis afartaas kaafka gabayga iyo ka hawaa barid kooladan ka jaray maansada iyo kala furkeedii qiimo doog leh karar iyo hilaac kala buuxaan dheh afar kalena aan idinka milo kayd kala haray yaa koongiya kuweyd nooga yimid oo nagu kormeeraystay kulcadaha yaana soo dhex dhigay kaan karuhu buuxo yaa ka jaray arabkii saligoo naga kitaabeeyey yaa kurbada idinku riday waa tad ma yal adkaydeene yaa kaygaga nagu kiciyey oo na isku keen yacshay kiska waali yaa nagu riday oo kunya nagu toogtay katiibada cudurkan u hoshiina laga keenay kaafi oo ka kaygana hayo oo kaligii meel jooga koofi oo u yimid buu arkoy kala xanaaqeene way kala carraabeen intay kibir ismaageene hurdadu ka jaray oo saqdhaxe waa karkariyaaye markuu madaxa kala jabiyey oo neefta kari waayey kartoon uu ka dhigay oo indhaha ka mirigsiinayo kala goosyadoo idil jirku kor ugu faafaaye waa kolkoliyaa soo nafloo ku cimro qaataaye kelmadaha samaantuu nafloo ku ictikaafaaye in ilaahay uu naga koriyo oo shuushka naga saaro oon keenna liita caawina baan kaga baxaynaaye kumanaan yaasiin hala aqriyo kiisku waa tegiye kuma hadiya kun jeer maalig baa keeni naxariis kuma hadiya kun jeer maalig baa keeni naxariis iyo sidaas ku dhaayay maasha Allah awaanay gabaygan ma la wadaagtay bulshada waxaan aragnaa gabaygan inuu yahay gabay ruuxantii tala badan baad aad bixisay marka hadda ka hor ma jirtaa gabaygan dad aad la wadaagtay oo bulsho aad la wadaagtay ma jirtaa maya mase kuma suurtagelin hadda ka hor ima suurtagelin hadda ka hor inaan gabaygan aan soo bandhigo ama caadi aan u duubo ima suurtagelin marka bulsho badan lama wadaagin sida la socoto wuxuu ahaa abwaan axmed cabdi warsame oo caawa barnaamijka kaalimaha suugaanta qayb ka ahaa barnaamijkan kaalimaha suugaanta waa barnaamij taxana mar walbana aan doonayno inaan socodsiino maalin bana aan ku soo qaadano qaar ka mid ah kaalimaha suugaanta annaga oo fiirinayna markasta waxa bulshadu ay aad ugu baahan yihiin iyo sida waxyaabaha jira iyo waaqaca jira annaga oo ka tixraacayna marka caawa abwaanka ayaa barnaamijka qayb ka ahaa abwaan axmed soo dhawaaw marka barnaamijka kulita waan wadi doonaa ka waran ma jeceshahay inaad marar badan ka qayb qaadato barnaamijka oo aad tixanaha qayb ka ahaato maadaama bulshadu ay aad dhiirigeliye heer sare ugu tahay abwaanna tahay qofka waxa la yiraahdaa dhiirigelintu ayadoo markasta wanaagsan ay haddana markay gabay gasho ay waxay leedahay muhiimad gaar ah sida ay dadku og yihiinba oo qofka marka tix wax loo gudbiyo iyo marka tilaab loo gudbiyo farq weyn baa u dhaxeeya marka ma jeceshahay inaad mar walba qayb ka ahaato barnaamijka kaalimaha suugaanta oo waa jecelahay inaan bulshada la wadaago anigu fikradayda iyo wixii maaragta aan soo saari karo barnaamijkana ku xiga insha Allah taala ama wixii ka dambeeyo markaan channel soo dambe waa ku casuumanahay hadii la yiraahdo intaas waxa ku dhageystayaal barnaamijka caawa kaalimaha suugaanta intaan barnaamij lacayna dib u kulmi doono